gudan cadaadinayay haddii qabyaaladoodan cadaadinaysay haddii dhaqanadeen cadaadinayay horta maanta waxaad ku farxdaan kuwii intaaba isbidayey qabiilka isu bidayey inay qabiil xooga ku soo baxayaan inay dhaqan ku soo baxayaan iyo idinku inaad meel wada joogtaan in badan oo intaa iska tirinaysa markaad foodka eegto intii aad ka cabanayseen in badan oo tirsanaysay maanta waad la mid oo may soo bixin waa ogtiin waxaad kaloo ku faraxdaan in foodka Somaliland u socdo sidii hore aan ahayn marka loo eego codadka dhalinyarada siiba Hargeysa si ay u bixiyeen inuu codku aan u soconin caqabadaha ka cabaaraysan in la jiirayo oo isbedel socdana ku tala gala labadaas wada dhiirigeliyay waa dareenay ra'yigiinii iyo dhawtaa sheegateen codsigiina aad soo jeediseen ee ku midaysnaydeen tixgelina waa mudan yahay waana isku noqonaynaa oo halkan jawaab kaga bixin maayo marka waxaan ogolay taladan aad loo dirso xulusha hal la helo maantana habluhu waxaan qabaa meel ay kun iyo jabaan inaan joogin iyo qarankuba way doorashadeena ma aha nabad ay ku dhacday iyo waa la isdul qaatay xataa se u dhacday ayaa dhibaatooyinka qabariga iyo dhaqanka iyo cuqaasha ay qadanaysan way ka xoog weynaato waa jeeday xataa xisbada jeeday wax soo wax fiiroomana ah inay aqoon shaqayn doonto dad dawladda garanaya inay wax dooran doonaan marka meel aynu ka duulo oo aynu ka sii horumaraynu taaganahay xukuumadana waa la shaqaynaynaa carqalada dumarku ay ka maqan yihiin tala dalkana waa waajib qaran oo qof walba saaran in arinta xal loo helo oo la riixo xukuumadana qof aan wada jir kaalinta ka qaadanaya waa ka dadaalayna hadii alla yiraahdo inuu soo galo aad iyo aad baa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhowr kalmadood kow arinta haweenka ku saabsan gender questions ku saabsan adduunyada meel aanay ka taagnayn ma jirto maraykan baan anigu ka imid 2 weeks ago wadanka maraykanka sidaasaa la iskugu hayaa haweenka maxaan ku rahay xaqoogii iyo dee inay powerkii qaybtoodii ku yeeshaan waa la isku haya hal isdhaandhaamo laakiin meel aanay taagnayn ma jirto adduunyada marka waa general universal question laakiin dee wadan walba si gooni ah ayay u taabataa saddex amuurood ayaa adduunyadan maanta wareer ku ah oo hor yaala mid waa tii haweenka midna waa tii cunsuriyadda ee race oo madow iyo cadaan khaasatan ay ugu horreeyaan dagaalka ugu weyn maraykan wuxuu ka socdaa madow iyo cadaan oo dee uu taagnaa 300 oo sanadood ta saddexaadna waa dhaqaale waa class ya indirectay iyo inta hoosta ku naanaabaysa bisaaradda iyo gaajada iyo cudurku dilay saddexdaa gender race class saddexdaa maanta weeye garoonka kubadda adag lagu dagaalamayo adduunyada meel walba Somaliland aan ahayn meel walba laakiin marka xagga Soomaalida u soo noqoto meel xun baynu naalna hadaynu Soomaalina markay timaado arinta haweenka no question about that maanta uun ma waa taariikh soo jirtay gunta hoosana waxa weeye dhaqan aad iyo aad khaayis u ah oo fadhiistay oo muddo badan soo socday oo ka dawlad ka ballaaran ka gundheer ka quwad weyn dawlad yaa jira meesha dhaqan Soomaaliya halku ka imanayana de waxaynu u baahannahay maalin kale inaynu guda galno halku ka imanayo laakiin halkaa weeye halka ay arintu taagan tahay walaashay hadalka carabka ay ku dhufatay de waxa kamid ah taas qabyaalad iyo dumarka la cadaadinayo hadaan labadaa wax laga qabanaa waliba qabyaalada aan wax laga qabanaa waxay noqonaysaa maxaan ku dhahay biyo coldaan shay wax alla wixii dadaala ee la keeno hadalkay waxin anigu dumarkii doorashadan ka qayb galay labaan aqaanaa aqoontayadu ay waxoogaa durugsan tahay oo ka qayb galay doorashadii loo gelayay baarlamaanka inay halkan fadhiyaan baan isleeyahay labadoodiiba Sucaad iyo Sacdiya labadaasaan aqaanaa rag Soomaaliyeed oo maanta Somaliland jooga oo ka aqoon badan oo ka ilbaxsan ma aqaan hadda baleekad ma aqaan haddana way soo bixi waayeen marka waxay ku tusaysaa de quality kasta haddaad keento wax ka weyn oo dawladda ka weyn ayaa albaabka fadhiya marka taas sidii loo furfuri lahaa wayna hortaala Soomaaliya iyo Somaliland maanta markaad isku qiyaasto
wax badan baynu kaga horeynaa oon shaqo isku lahayn dee doorashadaasi siday u dhacday markaad arrintan dhaafto ku saabsan haweenka siday u dhacday nabadgelyada nidaamka ay u dhacday lagama heli kara halkaas marka dee haddii progresska aynu gaadhnay inagoo Soomaaliya aad uga horeyno aan ka sii dhabayno arrintan waa inaynu wax ka qabanay aniga ila tahay marka waxaan odhan lahaa madaxweynaha iyo inta ag fadhida iyaga iga og hawshu siday tahay iyo wax loo baahan yahay laakiin anu waxaan odhan lahaa scenarios la soo bandhiga meesha scenarios kuwii socon karaya ya ee jabinaya maaha un arrinta haweenka arrinta waxa ka dambaysa jabinaya kootuhu waxa laga yaabaa inuu yahay waddo la mari karo waxaan anigu odhan lahaa oo igu dambaysa waddanka la yidhaaho Rwanda dagaal aan la arag Afrika ayuu soo maray مليون قف بيسكدلين صدح بلوط 3 months nearly a million people بيسكدلين قبيلات عن العرق معانكو هاي عداوات عن العرق ويسمريين مانتنا ووطن كأفريقيا مثل كون نقضي هورو صعد مقالة دو دوات وقو قروح بدن دومر كبارلمان كإنت كجرت وقو يران بقولك وكنت هذاقد يدول مركب واحد يدور لها هاي مدحوينها أنا نشيء أنت معانكو هاي حكومة الله وضع سيناريوس كعين كاس اللي جوا ضمن أفريقيا وحن وحكا قبتي حقيقي سيدي وحكا قبتين وحنا إن لبارو ولا هلي كراز وعلم جاس ميسكو يلا أيان نورين لها لكن أنا وحن مرخاتوجا هاي مدحوينها إن بدن بانو شيء كيسن يعني ما يبي لحت تبص النض بانو شيء كيسن وأنا هاي أرنتا سو سيدا أي ودني هي سيدا دنبيش أو قطال لكن وحن ماشي يلا دقن لو بهين يا إن الجبيو دولة ده يو هوانك iyo dhalinyarada iyo shicibkuna waa inay iska kaalmaystaan sida hadii aan la jabin karin waa in la diiso gidaarka waa in la diiso meelaha laga bilaabi karaa anu intaasaan doonay aad baad u mahadsantiin idinka iga waroon Allah idin la jiro nabadgelyo inta ilaahay lagu mahadnaqo amniga iyo caafimaadku ka yahay ka sakow madaxweynaha qaranka gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere iyo wasiirada iyo haweenka xiriirta ah soo tartamay soo dadaalay marka kuwa salaanta islaamka idinku salaamaya ka qaybgalka hanaanka siyaasadeed iyo ka muuqashada golayaasha qaranka ee haweenku waa tallaabo si cad dunida uga iibinaysa dawladnimadeena iyo dimuqraadiyadeena iyo bisaylkeena anigu ma aaminsan in haweenku guul daraysteen isku dayguba waa guul qasabna ma ahayn dhammaantiin aad tartantaan udooda guulaysataan waxaase qasaba inaad isku daydaan dhammaantiin inadooda guulaysataan waanad isku daydeen hablihii taleex iyo buhoodle iyo ka soo baxay xudur waa idinka mid guushana waa la leedihiin idinkoo tartamay oo dumarow dadaalay haddii sidaad dhammidiin rabteen ay rumoobi weyday waxaa ku liqdaan waxaad furteen dabar idinku xidhnaa waxaana dumiseen dayr idinku meegaarsanaa maadaama bulshada Soomaaliland aqbashay damaca siyaasadeed haweenka waxa fursad weyn ah oo aanu ogahay hoosta ka xariiqaya golaha yimid ee soo baxay waa dhalinyaro u badan waliba dhalinyaro aqoon leh dhalinyaro fahmaysa xaq iyo xuquuqda haweenku leeyihiin dhalinyaro garawsan doorka haweenku ay ka ciyaari karaan dalkeena waxaan aaminsanahay in golaha hadda yimid ee aan ka mid ahay uu xambaari doono dareenka haweenka golaha ka maqan shakhsiyan inaan codkiina ku hadlo idin matalo kulay waaba soo dhowdiin soo Axmed sheegay ana idin ballan qaadayo waxba hagran maayo laakiin waxaad ku xisaabtantaan odogaataan dawlad ahaan iyo xisbi ahaan iyo shacabka markaad eegto dareenkooda cid guusha la idin kala jecel yahay ma jirto ina guulaysataan maan jecelahay oo anu shakhsiyan jecelahay golaha aan ka mid ahayna waxaan ku dadaali doonaa in wax kasta oo hablaha suuro gelinaya inay dawladnimada doorkooda ka ciyaaraan sharciyan aan la dadaalo madaxweyne oon kaaga mahad celinayaa sidaad u qaabishay dareenka ay cabireen baan mar labaad iyagana bogaadinayaa waxaan ku leeyahay sidaad ula soo dadaashay imkana ula sii dadaal si ay qaranka ula dadaalaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu golaha qaranka ee maanta halkan isugu wada yimi haweenka qaranka ee maanta halkan isugu wada yimi bahda miidiyada aad baan idin wada salaamaya madaxweyne horta marka ugu horeysa waxaan kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee xishmadu ku jirto ee nooga aqbashay
inaad maanta na siiso waqtigaagii qaaliga ahaa runtii aad iyo aad baan taa kaaga mahadcelinayna waxaa intaa noo dheer madaxweyne halkan maanta waxaa fadhiya kariimkii dumarka ah dalka fadhiya halkan maanta isugu yimi waxaa fadhiya hablihii musharaxiinta ahaa ee tartamay ee sida hufan u tartamay ee muujiyey muruqoodii iyo maskaxdoodiiba muujiyey ee ragga la tartamay iyadoo caqabado fara badani ay hor yaaleen halkan waxaa nala jooga maanta tiirkii ugu weynaa ee nagaad ee hablaha ilaa weligood iyo dumarka usoo shaqaynayey ee maanta iyaguna kowka ah nagaad waxaa ku jira dhalinyaro soo socota oo iyaguna jaamacadda ka soo socota oo xaggooda ka yimi oo iyagana hilib dumar oo markaa volunteers ahaa oo iyaguna haweenka la shaqaynaya wasaaraddu aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda qoyska oo iyaguna si hufan ula soo shaqeeyay hablaha oo ilaa gobolladoo dhan u tegay wasiirka daakhiliga oo saacad walba albaabkiisu noo furan yahay saacadaanu doonaba aanu u tagno wixii mashaakilana haya aanu runtii naga qaabila oo si wanaagsan noogu soo dhaweeya xafiiskiisa aad baan ugu mahadcelinay wasiirada martida sharafta kale maanta inagu helinaysa haweenweynaha maxay ahaydey musharaxiinta ahaa kulli waan idin wada salaamaya mudane madaxweyne anigoo ku hadlaya magaca haweenweynaha Somaliland waxaan horta maxay ahaydey kugu mahad celinaynaa sidii sharafta lahayd ee haweenkiisa soo sharaxayay aad uga dhaaftay maxay ahaydey aad uga dhaaftay kharashkii registrationka ama diiwaangelinta ee musharaxnimo ee runtii culayska weyn ku hayay haweenka oo aad maxay ahaydey adigu iyo maxay ahaydey xukuumaduba aad dhabarka u dhigateen maalintii intaanad maxay ahaydey taa lagu dhawaaqin waxaa mudane madaxweyne waxaa sharaxnaa 7 xubnood ayaa maxay ahaydey sharaxnaa 3 u sharaxnaa golaha deegaanka iyo 4 u sharaxnaa golaha wakiilada maalintii aad ku dhawaaqday inaad maaragtay culayska ka qaadayso haweenka iyo maxay tahay beelaha laga tirada badan yahay oo aad adigu dhabarka iyo wasiir aad u ridateen adiyo wasaaradda maxay ahaydey dawladduba runtii waxa weeye tiradaasi way is afar laabtay waxay gaadhay 8 dumara oo 15 ay u sharaxnaayeen soo sharaxeen golaha deegaanada iyo maxay ahaydey 13 isu soo sharaxay golaha wakiilada mudane madaxweyne waxaanu rabnaa inaanu horta hambalyana kaaga dirno oo aan maxay ahaydey ka hambalyeyno adiga iyo maxay ahaydey xukuumaduba sidii ay maanta aad maaragtay inoogu dhacday 2 doorasho oo isku sidkan oo maanta adduunka oo dhan ba inagu bogaadinayo oo inoogu dhamaatay nabadgelyo iyo maxay ahaydey si sharafa inoogu dhamaatay taasna waan kaaga hambalyeynaa anigoo ku hadlaya magaca haweenka intan halkan fadhiday ee haweenweynaha reer Somalilandba taasna maanta amaanta idinka leh mudane madaxweyne hablahan musharaxiinta ah caqabado badan baa maxay ahaydey soo maray oo caqabadii ugu weynayd ay ahayd caqabad dhaqan iyo caqabad dhaqaale caqabad dhaqan oo ah mudane madaxweyne haddii aan shacbigu aanu ka xoroobin afkaartan maaragtay qabaa'ilka ah qabaliga ah ee maxay ahaydey ragaadisay runtii haddaan laga xoroobin dee dumarkuna ma xoroobayaan waayo mujtamacii baanu ka mid nahay ilaa taa laga xoroobo haween uma xoroobayaan oo ma soo baxayaan isuma sharaxayaan si xorana loo dooran maayo waxa mar walba caqabad ku noqotay haweenka dhaqanka ah in la yidhaaho maxay ahaydey caaqil ha ku soo maxay ahaydey magacaabo oo intaanay sooba gaadhinba xisbigii taasi waxay keentay in mar walba la yidhaaho duco ama habaar kala dooro gabadhii maaragtay in lagu reebo ama walaalkaabaa sharaxayn adeerkaabaa sharaxane dee adigu maxaad qabanaysaa maxay ahaydey ka hadh runtii ilaa taa laga xoroobo oo mujtamacoo dhani uu ka xoroobo taasna aan u malayno inay qaadanayso maxay ahaydey dee aan waxaas leeyahay qarnigan oo dhan iyo way soconaysaa dee intaa afkaarta qabaliga ah laga xoroobayo dad haweenkuna ma xoroobayaan annagoo taa ka duulayno adna aad nagala duulayso waa adigii maxay ahaydey kooto 22% ah gudbiyey oo ay gudbiseen idinkoo maxay ahaydey ah golihii maaragtay wasiirada aad ansixiseen oo u gudbiseen golihii sharci dejinta nasiib darro waa tii golihii sharci dejintu inagu soo celiyeen oo ay dee inoo cuskadeen sharci aynu dhaafi kari weyno oo ah dastuurka غير دستوري maaha inaan maaragtay haweenka loo xidho kooto gaar ah in loo xidho taas marka laga yimaado haddana kumaad hadhin intaas
waa adigii intaad maxay ahayday axsaabta saddexda xisbi qaranba fartay oo si adag u fartay maadaama kootadii la laalay in 18 dumara laga soo saaro lixda maxay ahayday gobol ee Somaliland oo min saddex xisbigiiba uu soo saaro si ay u soo sharaxo runtii markii la soo sharaxay caqabadii aan sheegay imika ee dhaqaale iyo dhaqan baa halkii maaragtay yimi oo ay hablihii maaragtay dhaafi kari waayeen hablahan imika meesha fadhiya waa hablo aad iyo aad u soo dadaalay intooda badanna limitkii taagan yihiin limitkii ay ku gudbi lahayn nasiib darrose aanu u saamixin maxay ahayday duruufta u saamixin inay soo baxaan waxaa soo baxay xagga golaha deegaanka saddex haweenaa soo baxay 15 ka soo baxay 12 ayaa hadhay waxaanu ula tagnay maxay ahayday codsi wasiirka dakhliga maxamed mudane maxamed kaahin oo aanu nidhi bal 12 ka hablood ee aad maanta adigu wasiir dakhli ahaan golaha deegaanka wixii aad la qaban karto inaad nagala qabato oo aad meelayso runtii ballanqaad buu noo qaaday wuxuu yidhi intii karaankaya waa kay hor fadhiya maxamed kaahin waan idinla qabanaya dee maxay tahay waxna idinka hagran maayo waxaa soo hadhay 13 haween ahaa ee maxay ahayday isu soo sharaxay golaha baarlamaanka ee maaragtay maanta soo bixi waay waa kuwa halkaa fadhiya maxay ahayday maanta waxaanu kaaga fadhinaa oonu kaa codsanaynaa mudane madaxweyne wixii aad la qaban karto inaad la qabato oo aan maarta waxba laga hagran maanta hablahaas soo bixi waayo waliba marginka intooda badani taagan tahay yaa wixii lagala qado way dadaaleen marginka waxay ku soo gaadheen waa dadaal tolma caawinaynin maxay ahayday dhaqaale kale meel kale kama soconin diaspora loogama soo diraynin waxaasoo dhan waxa weeye individual iyo in yaroo maxay ahayday dee asxaab iyo maaragtay friends iyo ehel u maaragtay u aruurinayeen ayaa ay maaragtay halkaa ku soo gaadheen dadaalkaa ku soo gaadheen runtii waxa weeye waa dadaal xoog leh oo ay rag badan kaga badiyeen inay soo gaadhaan marginka rag badan bay kaga badiyeen maanta haddii aanu mujtamaceenu u bisil yahay in gabadh la soo saaro oo la doorto oo aan lagu xidhin yay tahay iyo qabiil hebel miyay tahay iyo xaggay ka soo jeedaa hablahaas waxaan hubaa inay soo bixi lahayn intooda badan nasiib darro may soo bixin marka iminka anigu hadalkayga waxaan ku soo koobayaa inta aynu ka xoroobayno maxay ahayday mujtamacan qabaliga aynu ka xoroobayno iyo afkaartaas waxa weeye inaynu u noqono wixii xala ee aan laga fursanayn in loo xidho tootadii aynu wadnay si kaleba ha loo dhiga sidii loo dhigaba maanta ama dastuurka la furiyo ama si kale loo dhigayaba maanta waxa soo baxday inay lama huraan tahay oo waa taas maanta la soo bixi waayay waxaan maanta intaasan hadalkayga ku soo koobayaa qaranka Muuse Bixi Cabdi golaha wasiirada hablaha musharaxiinta ah nagaad iyo hiil haween iyo sonsof iyo arrimaha bulshada xildhibaanka laab saalax saxaafadda intiina waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta anigu saddex xaalun baan imanka u kaco hablaha hadlaye markii hore noo qorshaysnaa haddaan nahay hablaha musharaxiinta ah horta mahadnaq madaxweyne waxaanu kaaga mahadnaqaynaa sida quruxda badan ee sharafta leh aad noo qaabishay ee aad noo soo hor fadhiisatay adiga golaha wasiiradaba waanu idinka mahadnaqaynaa marka labaad waxaanu kugu hambaryaynaynaa doorashada isku sidkan ee sida quruxda badan ee bilaaturaanta ah ee wanaagsan ee labada doorasho waaweyn ee laga warwarayay aad u qabatay aad baanu kaaga mahadnaqaynaana waana wax lagu hambalyeeyo waanu kugu hambalyeynaa mar saddexaadka 28 ayaga dumari inteeda badan golaha isma soo taagteen haddaad cashuurtii naga dhaafin tiir weyn baad jabisay habluhuna way ku faraxsan yihiin caalamkuna waa kugu ammaanayaan aad iyo aad baanu taana kaaga hambalyeynaa waxaa noo raacda annagu markaanu nahay hablihii musharaxiinta ay tartamay caqabadu mid walba siday doonto hawlo kulanto mid oday cadaajiyo mid qabiil cadaajiyo mid meel kale laga soo raaco alxamdulilah dee maanaan soo bixin laakiin waxaanu ku qanacsannahay soo bixideeda aanu ku qanacsannahay maadaama Somaliland guulaysatay oo caalamkiiyo meel walba nalaga ammaanay guushaasaanu leenahay oo barkayaga leenahay marka waanu ku qanacsannahay nasiibku golaha nama keenin labadii golo midna saddex hablood baa naga soo baxay oo waliba siinay hayeen meelahaas aan malaynayo waanu ku qanacsannahay adigana waanu kaaga mahadnaqaynaa waxaan doonaynaa inaan doorashadii hambalyeeno waanu wada hambalyeynay hadal badan looma baahno iminka dee waxa weeyaan hablo badan saddex hablood baa hadlayo dambe aad iyo aad baan kugu hambalyeynaynaa si kal iyo laaba annagoo aan xusbiyo kala lahayn annagoo hablii Somaliland ee soo tartamaya Soomaalidu waxay ku mahmaadaa habluhu
markay tolkoodu yimaadaan haddeer dowladdu waa tolkayagii tolkood markay habluhu yimaadaan dhinacaana ducay ku sidaan dhinacaana habaar annagu maanta dhinacii ducadaanu furaynaa ogow dhinacii ducada ayaanu ka rogaynaa daaha ha waayo aad iyo aad baanu kugu qanacsanay markaa qof aad ku qanacsanayn xukuumaddaada iyo dowladdaada iyo dadkaaga yooyootani baa bilaabma laakiin aad waxaan ugu qanacsannahay qaabilkii ugu horreysay feeraswankii sidii aad noogu qaabishay ee aad cashuurtiiba nooga dhaaftay ee haddana mar labaadkii cashuurihii u bixisay ee wax walbaad qabatay guntiga xidhatay maanta ninkii ku yaqaanay hore ku yaqaanina waa ku yaqaanaa ninkii aan ku aqoonina ku baray kii yooyootamayaana yeelkii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu raxmatullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne golaha wasiirada sharafta leh dhammaan hablaha iyaga xildhibaanada ahaa iyo intii dhabarka nagu haysay hablihii hiil haween nagaad wasaaraddii maxay tahay arrimaha bulshada iyo sonsaf adigu kooxo badan baa deena waday horta waanu tartanay haddaanu tartanay dhowr gidaar waa duminay waxaanu duminay gidaarkii ahaa hablo ma tartami karaan intaydaas waanu tartanay tartan weyn baanu tartanay in badanoo naga midina meel sare joogta waxbaanu haysanaa in alayar reebay laakiin khidadahaanu dib u baran doonaa khidadahaanaan aad u garanay markii aanu meesha tagnay khidadaha dambe la isku reebo gidaarka labaadaan joognay wuxuu in badanoo naga mida reerahooda wadatay odayaashayagii reerkayagii dadkayagiiba dhabarkaysay in badanoo naga midana iyagaa ridayay markaa dee at least waxaanu jabinay gidaarkii lama tegi karo oo reeruhu hablaha ma soo saari karaan way adag tahay weli waqti dheer bay qaadanaysaa inayna aqbalo laakiinse waxaanu soo jabinay gidaarkaa ah qofka in reerkoosu soo sharaxi karo oo soo qaadi karo oo ku keeni karo oo lagula dagaal geli karo taana waanu soo jabinay waxyaabaha kale aanu soo jabinay waxaa ka mid ahaa xisbiyada intayada badani kamaanaan mid ahayn oo dee xisbiyahan maanaan ahayn marka dhibba hanagu ahaatee dee waanu helay positions aanu runtii ka tartano oo xisbiyadu waana siiyey inkastoo aanayna dabagelin ay intay dee boosuna siiya naga hadheen oo ay ahayd dee inay nala socdaan laakiin horta taana waa nala siiyey wax badan oo kaleetana dee waanu duminayoo somaliland dumar baa u tartamay sanadka maanta yayba soo bixin anagu guul baanu qabnaa waayo waanu guulaysanay mar haddaanu meeshii tartagnay oo aanu raggii la tartanay laba wax baa noogu daraa midi waxay ahayd lacag kayr caadiya anugu waxaan moodayay dadku inay dee waxa lagu tartamayaa lacag inuu yahay waan ogaa laakiin nin 300 kun baabiinay anu wax dunidanba ka samaysan lahaa supermarket weyn oo dunidoo dhan dhaqaysa kuma tartamaan haddaan 300 kun haysto laakiin dee lacagta lagu kharash gareeyey bahasho waxa weyn khadaaf ayaan daraduna waxay ahayd qaad baa lagu bixiyey soo Ethiopia qabatay ayaan darada ugu weyn waxay ahayd 9 jirkaa la siinaya qaad waxaan u baahanay inaynu ku noqono sheekooyinka sheeko xun bay ahayd laakiin dee qaad baa afarta koonana dhigay anaguna waa bixinaynay beenta waa xaraan qaadka waa nacebahay waa nacebahay anu qaadada bixiyo laakiin waa bixinaynay khasab bay tankaan loo daloolay iyo waliba sheeko kaloo soo korodho la yiraahdo maxaa la muxuu ahaa sooriyada haweenka bariga hore ma jiri jirin marka bahal lacaga horta inuu wareysay iyaduna dalka runtii nooga qiimo weyn inaan kursi helo waxaa nooga qiimo weyn dalkayaga ammaantiisa iyo sumcadiisa iyo magaciisa intaana waanu wada dhowray bahashaa laynoo ammaanay inay inoo ilbaxdo oo ay dhulka inoo tagto annaguna raalaanu ka nahay duguushaana waxbaanu ku leenahay aad baanu kugu leenahay anigu waxaan kusoo gebagabeynayaa guulna waanu joognaa oo soo guulaysanne caqabadiina halkeedii bay taal mid kalean ku noqonaya waxa la yidhahdaa dumarku ma idin codeeyaan horta dumarku wayna caawimeenoo dee intan meesha fadhiyaaba annagu bay noo cararayeen qaarkood lacag bayna siiyeenba oo noo ururiyeen waa mahadsantii wasiirada halka maanta noola fadhiya nagaad hiil haween sansof dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta de hadalkii in badan waa la yidhi annagu se sidaan ognahay ma qabno inaanu dhacnay waana la qalin daaray laakiin maanaan dhicin waxase maanta meeshan maanta yaalla waxa weeye xagee tan looga soconaya wixii way dhaceen election waan galnay waan tartarnay lacagtu ama ha yaraato ama ha weynaatay wixii loo baahnaa waanu dhignay effort naguma yareen dagaal naguma yareen olole naguma yareen hase yeeshee dee resultkii maanta waxa weeye inaan dumarkii golayaashii meelna aanay fadhiyin oo aanu ka maqannahay waxa meesha taalla waxa weeye cawaaqibka ay yeelan karto
dhibaatadaa dhacday cawaaqibka yeelan doonto mustaqbalka dumarka isu soo sharxi doona way ka dhawaajtay sacdii reero ayaa dadka qaarkood soo dhigay xisbiyaa soo dhigay waxaan anigu xisaabin karaa ilaa 60,000 oo cod in dumarka marka la soo wada geeyo 28kooda la soo wada geeyo codadkoodu 60,000 way gaari kartaa waayo 60,000 ee qof ee codeeyad maanta dumarkii u hiiliyay waxay u arki karaan in ay khasaareen codkoodii u khasaaray kor haddaan mid soo baxday jirin inuu codkoodii khasaaray mustaqbalkana waxaa dhici karta in la yiraahdo maxaa baynu dumar ka sharaxi mar soo baxayaan ana iga hortimi taas marka horta taas cawaaqibkaas ay leedahay maxaase anagu u aragnay markaan wada fadhiisanay wada shirnay wada hadalnay nabaradiina soo gaaray iyo wixiina soo gaaray aan ka wada hadalnay waxaan anagu u aragnaa sida kaliya ee lagu bogsiin karaa taasi inay tahay madaxweynaha oo sameeyo talaabooyin aan hore loo arag oo u sameeyo talaabooyinka dumarka wax aan hore loo arag uunbaa dumarkii dib uga soo celinaya nabaradaa gaadhay mustaqbalkana inaan lasoo sharxin oona dumar dadkaasi saanay u dareemin codkooda khasaaray oo haddii golayaashii deegaanka kii baarlamaanka haddii laga waayey waa kuwa wasiir hablihii noo noqday marka horta kubaddii madaxweynaha la taala mudane madaxweyne aday kula taalaa sida aad ka yeelaysay iyo halka aadna dhigaysana dee aday ku taalaa waxaasoo dumari maanta waan ka wada hadlanay hadalkaan ku leeyahay midaan anigu iska uleeyahay maaha waa mid aan soo go'aansanaynin maanta madaxweynihii markaan u tagno maxaynu weydiinaa aan nidhahnaa sideebaa looga soo bogsanayaa taas marka dowladdu waxay leedahay meelo badan ee dumarka ku magacaabi karto hablaha golaha deegaanka meelo badan oo lagu magacaabi karaa jira dee waxaan doonaynaa in aan sida adduunyada kale kumay khasaarin markay 50-50 yiraahdeen kabinetkooda yiraahdeen kumay khasaarin ku faa'iiday marka maamuuska iyo wanaagaan anaguba Somaliland u tugnay waan kari karnay 28 inuu maxkamad tagno mid quraato aan islahayn commission baa lagu qaday ma tiraa lagu qaday ma jirto ina naga mid imika maxkamadii ku jirtaa oo waxay digeystay way dacwootay kulligii waan kari karin inaan taas sameeyo saacadii sheegtay waxa la umuluhu maxaa la yiri si wuxuu arkan xumo sheegaan marka wax badan baanu qarinaynaa maanta aan doonay halka ka sheegno oo turaale jira aan dalka u turayno muxuu ahaa election ka quruxda badan ee umadu ka sheekaysan anaguna ka dabageyno barta madow already bar madow way jirtaayo waxa leeyahay Soomaaliland way qurux badan tahayo electionkeedu uu fiicnaa laakiin dumar ma jiraan laakiin taas way daba soconaysaa marka mudane madaxweyne codsiga iyagaas waxaan doonaynaa inaad wixii aad ka qaban karto ka qabatid muxuu ahaa wadankuna waa 50 baan nahay midna waxaad ogaataan dumar uma codayn waa been dumar way codeeyeen dumar xoolo way ururiyeen marka horta lama oran karo dumar uma codayn sheekada ahaan jirtay dumarka ma rabaan halka horta la iska dhigo tii ahayd odayaasha iyo dhaqanku dumarka ma soo sharaxayaana been bay noqoto wata hablahan intooda badan boqolkiiba waxaan oran karaa 60 reerahoodii caaqiladoodii baa soo sharaxo warqadaha siiyay xabad aanu kamid ahay mooyaan hadday noqoto dumarkii ma bareerayaan hadday noqotona way bareereen dumarkii marka horta wax badan oo looran jira dhaqan iyo waxbaa reebayo imika halkan laga akhriyay anigu waxaan xaadir u ahay inaan midina taas ahayn wixiina reebay waxaana reebay waa labadaa wixii laga sheegay saasan kusoo gabagabaynay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa Manu Xuseen Khaliif horta dhammaan dumarku way soo dhamaystireen qodobadii ugu muhiimsanaa iyaga oo isku dareen ahaa isku hadal ahaa isku mowqif ahaa oo ay wasiirkaygu hogaaminayso wixii ay dumarku yiraahdeen way yiraahdeen hal mid baan doonayaa inaan ka yar dhawaajiyo oo Muna ah waxaan jecel horta in haween inaan idin yar baro waxaanu nahay hablo volunteera oo Somaliland dara oo ka sameeyay Somaliland dhexdeeda Hargeysa local fundraising madaxweynuhu wuxuu ku guuleystay oo ku calool adayga inuu sameeyo doorasho isku sidkan oo waliba u babac dhigo oo yiraahdo anaga ayaa kharashka ayaa hawsha galina waxaan anaguna jeclaysanay inaanu dadkayga barno inaanu u heelin karno haweenkayga oo aanu u sameyn karno dhaqaale aanu dhexdeeda ka waruurin karno
waxaan aniga sharaxnaa walaalkay xasan laakiin umaan codayn umaan shaqayn weli ii taagi waaya xasan iyo adeeraba waxaan 28 ka hablood ayaa naga go'an inaanu soo saarno oo aanu tusno maanta bulshada Soomaaliland inay haween taageeri karaan inay haween wax wal oo kasta u seegi karaan marka alxamdulillah waxaan aaminsanahay maanta inaan anaguna guuleysanay oo aananu khasaarin iyaguna ay guuleysteen oo ay haleen hiil haween ah oo habla ah oo garab taagan sidii nagaad u garab taagneed ee soo safut u garab taagneed ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada u garab taagneed ayay hablo iskood isku abaabila ay u garab taagnaayeen way noo suurtageli weeday madaxweyne waxaan ururnay $35,000 oo aanu maalintii ku wareejinay labada gole ee maanta ka hor fadhiyaba nasiib wanaag intaa in ka badan baanu jeclay bil gudaheed baanu ku ururnay $35,000 laakiin waanu jeclay intaa in ka badan inaanu ururino dawladda oo isku dayno inuu nibal shaqaalaha dawladdu qofka eedista $10 ha iska jaro qofka siidaystaana $1 hana siiyo taas way noo suurtageli weeday oo waxa caqabad nagu noqotay waxa la yiri siyaasad arrimaha dawladda lama geli kartaan laakiin anagu xisbiye kama socono siyaasi kama socono dawlad waxaanu ahayn haween mid ah oo ku midoobay danta maanta ay doonayeen inay labada golo ay ka dhex muuqdaan waa ilaahay mahadi halka ay maanta soo gaarnay waa guul Soomaaliland oo maanta garbaha wada haysanay halka soo gaarnay waxaanu jecelnahay anagoo hiil haween horta research baan anagu sameynay waxaan jecelnahay madaxweyne inaan soo bandhigno salaasada nagala qayb qaataan wasiiradaadii dawladdaaduna waxaan jecelnahay inaanu baltusno wax xaqiiqa dumar baa mar walba isa soo sharaxa lagama daba tago waay maxaa dumar ka reebay marka bal waxa fact aan rabnaa inaanu muujino oo reference leh hablaha nala shaqeynaa hablaha jaamacadaha ay kamid ahaayeen anagu waxaan ka soo bilaabay barnaamijka halka jaamacadda Hargeysa taasi waa naga taa waxa kaliya in madaxweyne maanta ka codsanayna iyagoo haweenku ku ag joogan oo ay maanta haween naga maqan aanay jirin inta halka joogan gobol to gobol Soomaaliland iyo Meteliya inaad maanta haweenku u helisid saddexda xisbi way hagradeen laakiin inuu maanta madaxweynuhu ugu hiiliyo oo saddexda xisbi uga hiiliyo ayaan ku rajoonaynay aad iyo aad baad mahadsantahay salaam ilaa cala daalimiin waan idin salaamaya dhammaantiin anigoo ka bilaabaya madaxweynaha qaranka wasiirada gudoomiyaha kulmiye wasiiradayada sharafta badan hablaha nagaad sonsef hiil qaran han haweenaya hiilka qaranka dhammaantiin waan idin salaamaya salaanta ka bacdi hadalka badin maayo annagu hadalkayga Sucaad Carmiya tiriyo halkii ay dhigtay buu noo yaalo madaxweyne adigu ba ka qaadi kara salaam calaykum waraxmatullaahi wax salaamaya madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi wax salaamaya golaha wasiirada wax salaamaya xildhibaanka wax salaamaya wasiiradayada wax salaamaya haweenka sharafta laakiin isku yimiday bacda salaan horta waxaan ku horeysiinayaa mahadnaq aan waxaan kamid ahay dhalinyaradii tirtamisay golaha deegaanka alxamdulillah rabbil caalamiin horta waanu dadaalnay meel fiican baanu soo gaarnay markaan isiraahdo maad soo bixin horta aan waxaan dib u eegaa un campaign-kayga iyo fiidiyoyadaydi alxamdulillah rabbil caalamiin campaign fiican bay dhacay bulsho badan bay soo istaagtay si wanaagsan oo tartamay waxaan kamid ahay dadka aan soo bixin xubnaha u sareeya waxay kamid tahay guulaha qaar inaan gaarnay mar haddaan ahayn qofkii ugu hooseeyay waxaan hayna kaliya gabli ka tartamaysay mar haddaan ahayn qofkii ugu hooseeyay waxaan kamid kursiga baan gaadhay xildhibaanaan kursiga fadhiin baan hoo dibadda jooga xisbiga dawladduba waan u mahad celinaynaa xisbigu si wanaagsan buu noo qaabilay haddaanu haweenahay ana waxaan kamid ahaa dadkii ragga xusulka ku reebayay run ahaantii waxaan odhan karaa xisbiga ii hiiliyey haddaanu ii hiilin kursiga maan helen aan ku tartamayo intaa haddaan ka imaado waxaan odhan karaa horta qadarta rabbi baanay dumarku ku soo bixin sanadkaa maanta dadaalkaan samaynay waxaanu ka baranay dulqaad waxaanu ka baranay dadaal horta dadaalkaanu campaign-kii ku bilownay ma joojinayna haddaanu haweenahay waanu wadaynaa ilaa halkii nala gaadho siyaasaddiina dee horta waxaan odhan karaa siyaasigu horta waa qof tartamay oo bulshadii bartay maaha golaha wasiiradu keliya inay siyaasiyiin yihiin maanta siyaasiyiin baanu anagu maanta waxaanu baranay bulshada qaybaheega waxaanu baranay dhalinyarta sida loola dhaqmo waxaanu baranay odayaasha afka lagula hadlo waxaanu baranay haweenka afka lagula hadlo intaba waanu barano waxay ka mid tahay guulaha aanu soo gaarnay guushu maaha inaan kursiga fadhiisano xaqiiq marka laga hadlo guulaha aanu soo gaarnay bay ka mid tahay madaxweynaha qarankana waxaanu ka rajaynaynaa inuu nagu daro reserve-ka siyaasiyiinta Somaliland
intaasaan kaga baxayaa kumaan jirin kolley dadka soo hadalka qorshaha lagu daray laakiin hadal baa day soo yara riixaya waxaan sidhi kelmadaada ka dhe aad iyo aad baan madaxweynahan ugu mahadnaqayaa kulanka maanta quruxda badan leh uu nala qaatay الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين الحمد لله رب العالمين كل واحد له كونفرنس كو السلامية هاي واي وقت كان دوريا وحويا runtii doorasho kasta wax baa laga bartaa wuxuuna xoojinayaa anigu doorashada wixii laga bartay individual ku eegi tartamayay iyo dawladda iyo ururaduba maaha kaliya wax dumar caqabad aan laga gudbi karin oo aad u foolxun baad taala balaayana af lagama dhowro waayaan waxana qof tartamaysay wax badan ma soo arkay waxaan aad uga xumahay suldaan inta ku imaado ku yiraahdo intaasoo nin baan hayaa kaadhigayso gabadh kula dumar baan hayaa kaadhigayso inamadii yareeray caruurtii yareedo la fidneeyo la leeyahay kaadhiga iibsada intaba waan diiday laba ragcadood baan gurigaygan seexday anu maalintii olala taasi madaxweyne haddaynan ka doodin dad wanaagsan soo bixi maayaan waayo dad dhaqaale ka soo baxaya marka waxaan odhan lahaa hal la ballaariyo researchka anigu kale wadan baan ka imo malaha Islington baabay dooran lahaydo maanta London ta kuma noqonayo wallahi kuma noqonayo waayo ina raaqay Ismaaciil la yiraahday anagu labada hablood ugu activisan baan xaafadda iyada oo deeray xamarka iyo dadkaan u shaqeeyo dhan waxay lahayn halkan abaay ma iska sharaxdido laakiin kaygan ka soo jeclaaday kumanaan qasaarin waxbaan ka bartay wanaagiisan jeclay in la hagaajiyaan jeclay aynu bulshahaan isugu tagno educational program baynu u baahannahay in dadka la baro waxa aad dooranaysaa muxuu yahay reer miyigii baa ka odhanay nin miyi jooga ka odhanay maxaa igu jiraad siinaysa that's not wax inaga suuroobaya markaas aynu dad wanaagsan oo xula u helo qofkii barnaamijkiisa la fahmo hala keeno saxaafaddu daacada ka noqoto oo anagu horta waan xishoonayno dumar ahaan saxaafadda kumaanu badnayn laakiin saxaafaddu wax ka badato hal ugu jibrado dadka saxaafaddu daacada ka noqoto dadka waxa la baro qofka uu dooranaya inuu wax u tariyo ilaahay dartiyo foodkiisa ku doorto waanan ka baxay salaamulaah istashan ba intaas iga hay bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin madaxweynaha xubnaha kalaha wasiirada gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye abwaanka xildhibaanka maanta martida inoo ah haweenka dhammaan halka fadhiya gabdhihii musharaxiinta ahaa ee soo guuleystay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam madaxweyne waxaan sidii dadkii horeba sheegay kaaga mahad celinayaa qaabilaadda maanta aad qaabishay haweenkii musharaxiinta ahaa aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay madaxweyne anigu hadalka badin maayo waa soo koobayaa waxaan u malaynayaa haweenku xukuumad ahaan iyo madaxweyne ahaan mahad baynu hayaan wixii ay u baahnaayeenna inagu waynu qabanay ilaahay baan qadarin inay soo baxaan dad badan bayna la mid yihiin oo aan soo bixin gobollo dhan oo aan matalaad ku lahayn golaha wakiilada ayaa jira wax idin gaara maaha doorashadii dhacday ayaa dhinaceedii kale uu sidaa noqday wasaarad ahaan kulle anagu waxyaabo badan baanu la qabanay muraaqibiintii wax badan baanu ka saacidnay tababaro badan baanu siinay inkastoo dumarkii aanu tababaray intoodii badnayd aanay kuwan halka yimi xisbiyadu soo xuleen ama ku guuleystay aanay ahayn marka inaga kulle ammaan bay inoo hayaan hadalkay maanta inoogu yimaadeenna waxaan u malaynayaa waa soo tartannay waa soo guuldaraysanay ee hanala cawido mowqifkoodiina waxaa caddeeyey sucaad carmiye waxaan la qabaa madaxweyne in la cawido kolley jawaabta hawshaasuna madaxweynuhun bay ku egtay oo ka jawaabi kara dhammaantoodna wuu mahad celinayaa adigana madaxweyne ku mahad celiya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu marka ugu horeysa waxay tahay anigu daraad baa ma ka hadlay waan u malaynayaa intaydii aan odhan lahaa waxaan qabaa dumarku inay dumarku ka mid yihiin bulshada dadka ugu mudan ee ugu mas-uuliyadda weyn wixii dagaaladii burburkii soomaalida ka dambeeyey haweenku waxay qaadeen mas-uuliyad ka weyntay ee xambaari jireen markii hore hadday faamiliga tahay iyo hadday waxbarasho tahay iyo hadday nolol tahayba aada iyo aada baa loogu tiirsan yahay somalilan qaabka nolosha ay hadda jira haweenku mas-uuliyad koowaad bay ka yihiin caruur kasta oo waxbarastay iyo deegaan kasta oo aad tagto iyo meel kasta oo aad joogto waxaa hogaaminaya qoyska noloshiisii tiro yar mooye boqolkiiba 55 in ka badan qiyaastayda waxaa hogaamiya haweenka isagoo sometimes xitaa odaygu nool yahay marka haweenku qiimahaas ugu fadhiyaa dalka ka xukuumad ahaan
madaxweynuhu intuu awoodi karay iyo xukuumaddu intay awoodi kartay way qabatay oo ahayd wixii laydinka dhaafay oo aan lacag yar ahayn waxaana isleenahay inaynu wixii hadda ka bilaabmata mar baa dhinac ka eegeysaa marka aad ka hadlayso dhinac baa laga eegi karaa waxaa loonaya dee gabadhu wiilka soo baxay hooyana waa dhashay way la farxaysaa midna wuu qabaa oo way la farxaysaa midna wuu dhalay oo way la farxaysaa dhankaa marka laga eegana dee dumarku khasaare ma joogaan laakiin ase gender marka aynu eegno xaq ayay u leeyihiin dumarku inay siyaasadda kusoo biiraan meel fiican baad la joogtaan dee dumar badan baa hadda waxay soo gaadheen inay noqdaan dhaxalsuyaha koowaad waayo aragnimada hadday ka dhaxlaysaan waana run waana arrin aynu rabno inaynu sii wadno markaa aad iyo aad baad u mahadsanta bismi illaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah madaxweyne xubnaha golaha wasiirada xildhibaanka martida qaaliga ah ee hablaheeniya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi intii madasha lahayd habluna way yidhaahdeen raggii hadlayna wuu yidhi anigu hablaa u calacali maayo una tacsiyadeyn maayo ee waxaan le waa guulaysateen guushuna way kala dandambaysaa guushaa gaadha waxa weeye sida la sheegay dhiiranaanta aad samayseen sida mujtamacii qeyb uga noqoteen ee la dooranayey wixii ragyeelayaba inay yeesheen in aad trial wacan samayseen adduunyaduna dee waa trial eraro mar qura ma wada hagaagto guushuna waxay imanaysaa waxay mahmaada sunnadu tahay waxa weeye intaasoo nagala sii dhawaado un halkan anigu yaroo tala bixin baan ka jeedinayaa markaan qiyaaso dhaqankeenna iyo hablaha horta intaanan talabixinta u gudbin annaku rag ahaan ama siyaasi ahaan golayaasha qaranka inay habluhu joogaan waa noo qiimo badantao raggu had iyo goor isma tixgeliyo ilaa hablu ku dhex jiraan iminka golahan baarlamaanka ee imanaya hadday dhowr hablood ku jiraan raggu waa murmaa waa iscaayayaa waa isdilayaa laakiin haddii habla arkaa waxay war hablaha jooga amusa dhaqankeeni de marka la eego ama yaana habluhuna maqlin ama cidlaynoo saar waa la xitaa waa lagu kala xishoodaa dhaqamada qaarna raggu inaanay ku dhiirin baa laga yaaba habluhuna inay dee wax dhexdhexaadiyaan baa laga yaaba marka raggu isqabto marka dhaqankeenna lagama maarmayaa hablaha waanaynu qorsannahay oo dumarku haddaanay jirin dee ragba ma soo baxeen waxbana ma noqdeen tartankii waa laysu ogolaaday tala bixintaan bixinaya waxaa weeye 4 xaalo inay yeeshaan ayaa waajiba bahashiina waa ku dhawaateena niyad jabina 5 sanadood baa doorasho walba la gelaya mid loo kaliya mid buraalaan waxa raggu ku soo baxay oo anigu rag badan aan ogahay intii aan u warhayo 5 sanadood iyo in ka badan baa way halgamayeen ragga qaar waxa laga yaabaa dumarka habluhu inta badan inay markii doorashada la iclaamiyey ama ay soo dhawaatay in dagaalka galeen diiwaangelintii baa la bilaabay diiwaangelintii inta gore kaarka la qaatay waa garanaysaan kharashka markaasuu bilaabmay kolleyba intaan xogogaalka u ahay dadka waa la gurayey waa la wacyigelinayey kaadhirkaa loo sameynayey dad la kala xaraystay ayaa mar dambe horta hawshii gasheen waxay la tahay inta halkaa ka soo bilaabi lahayd maanta horta way guuraysan lahayd hablaha waxaan ku boorin lahaa inay ururadan ka qayb galaan oo ururo furtaan oo aan dee laguba xisbiga in laga sharaxay inaan laga sharaxin sidayna cadooyinka sheegaysay inaanay kuma dhicin oo ama oday loo doonane dee ay xisbi ay leeyihiin oo ayagu isku soo dhaweeyaana la helo marka waxaan leeyahay hawsha aad baa ugu dhawaateen guushana waa sigteen imikana waxaa laga yaabaa dee dhaxal sugayaasha qaar ayaa ka mid noqonaysaan ha niyad jibina hawsha wada xukuumad ahaanna dee wixii hore laydin taray iyo xisbi ahaanna waa laydin taray waxa dambana in laydinku taageero waa waajib wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweynaha iyo wasiirada gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga xildhibaanka iyo haweenka sharafta leh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii arrintan waa arrin aada iyo aada muhiim u ah waana arrin aada iyo aada u adag waana arrin u baahan inaynu go-aamo fara badan ka qaadano waana arrin u baahan in aynu xoog fara badan gelino
dagaalada jira haddaynaan aynaan analyse garaynin oo aynaan qiimaynin oo aynaan dabadeedna qorshaynin sidaynu uga qayb galaynaa calaacalkaynu ku jirayna marka baan waan la qabaa raggii yidhi iyo hablihii yidhi labadaba oo maxaanku idhaahdayey ahaa dumarku inay qeyb weyn qaateen inay maanta xoog ku galeen doorashadii inay tiro wanaagsan ahaayeen inay maxaanku idhahday meel fiican soo gaadheenna layskuma hayo laakiin waxaynu u baahannahay inaynu aada iyo aada hore ugu durugno bilmasalan kootada axmed siilaaya 2 jeer gudbiyey madaxweyne muuse bixi baa gudbiyey council of ministerskuna intaasoo dhan jeer way geenay qodobka anigu qolada nagaad iyo aada baanu wada shaqaynaa qodobkan waxaan ku nidhi de ka qayb gala arrinkaa doodeedii berigii lama xoojin shukri haweenku may xoojin golaha baarlamaanku waxaa lagu marmarsoonayay qodob dastooriya baa diidan qodobka dastoorigihii haweenka manu ogolaanin manuu diidanayna laakiin waa loo sameyn lahaa option maxaanku idhaahdaye aan dastoorkana xadgudub ku ahayn haweenkana arrinkiisa sii daynaya maxaanku idhahday waa la sameyn kari lahaa laakiin waxaynu u baahanay in effortka meel laysugu geeyo waa dhab haweenku qeybbay waxay idin siiyeen cod laakiin codkii la filaya waxaan qabaa dee inaanay haweenku bixin because percentageka ay populationka ka yihiin iyo percentageka ay codka ku bixiyeen labada waa kala jaad su-aashu marka la noqdo dib loo celiyo la idhaahdo gabadhu any gabadh reer somaliland ma waxay door bidaysaa faamiligeeda inay ka soo baxo bise waxay door bidaysaa inay ka soo baxdo su-aashaa lafteedu weli way nagu meersanaysaa mushkiladii ninkaa taagan arrintani markaa waxay u baahan tahay in aada iyo aada loo laysugu xil weyn layska saaro inaynu aada iyo aada dib ugu noqono inaynu imika fi lmustaqbal aynu eegno waxaa tiri imika waynu soo bandhigayna waxaan u baahan lahaa bandhiga ay soo bandhigeen waxay u baahan inaynu wax isugu wadageyno oo qolada haweenka ah qolada nagaad qolada xukuumadda ah waxoo dhan intaynu isu geyno dad aqoon-yahana xusbiyada dabeedna aynu abaaro exactly mushkiladdu halkay taaran tahay mushkiladan waa inaan ku dagaalamo haweeno la doonay anigu runtii madaxweyne gabdhaha kale waxaan islaatay dadka musharaxiinta bay la mid yihiin ama way soo baxo ama way dhiciye sacdiya ismaan lahayn way dhacaysan sababtu waxa weeye ceerigaabo waxa qura ee ay leedahay ee gobolada kaga fiican tahay waxa weeye waa buurta daalo oo dhir aan dhulka kale ka bixin ay ka baxdo ayadoo dabar go-aysaba dhexda u xidhata sida xaqiiqada ah way badbaadisay way ka saartay daydigii oo dhan bay kula dagaalantay xoog bay saartay daalo iyagaa dib soo celisay wixii qurahayd ee ceerigaabo lahayd qofkii ku dagaalantay de waxayd maanta inay noqoto the top of the candidates marka waa loo abaalkaa waa loo hayaa laakiin maxaa la hadhay dumarnimadaa la hadhaysa intaasaa lagu cadaadinaya anigu marka waxaan kusoo ururin lahaa madaxweyne qodobkan kaga baxaya waxaa weeye haweenka mashaakilkan faraha badan ee la sheegay waxyaalaha kale ee la qabanayo caalam oo dhan had iyo jeer wixii aan si organisationala loo qabanin dadaalka individualka ah iyo dagaalka kooxda ah iyo dagaalka urur yarka ah ma socdo wax waliba waa inay institutionalizer noqdaan waa inay si organizational structure waa inay lahaadaan dumarka waxaan ku boorinayaa wasiir iyo qolada nagaadiyo in organizationska dumarka muddaynu la soo rafanay meel fiican buu imika marayaa organizationska ambarelooyin bay isugu yimaadeen xoogga aan midayno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin madaxweynaha wasiirada hableheena halkan fadhiyo maanta ee isugu yimi golo deegaan iyo golo baarlamaan iyo wasiiradda nagaad sonsaf iyo hiil haweenba muuna dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa madaxweyne horta annagu xusbi ahaan iyo xukuumad ahaan waxaan filayaa ammaan fara badan inay nooga timi hablahan sharaxan oo dee iyagaaba dhameeyey xusbi ahaan
markaanu bilownay waxay ahayd go-aan ah in la siiyo kooto waxay soo gaadhay ilaa iyo madaxweynaha xusbiyadaanu la fadhiisanay golaha wasiiraday soo gaadhay xusbiga kulmiye wuxuu ku dadaalayay bilowgii isagoo mucaarida iyo isagoo muxaafidaba in kooto loo xidho haddii si kale ay kusoo bixi waayeen habluhu taa markaan ka soo gudbay ay tii socon weyday waxaanu dayntii xukuumaddu ama madaxweynuhu sameeyey idinkaa sheegay taa ku noqon maayo xusbi ahaan waxaanu nahay xusbigii ugu horreeyey ee qaaraankii laga qaadayay xusbiyada ragga laga qaadayay dumarka ka dhacfa qoraalna waanu qoray gobollada oo dhan inaanu dhahno gobolka aan ku soo darin hablo ku soo darin baarlamaan iyo deegaana laga qaban maayo sharciyan maaha laakiin waanu reeraha iyo gobollada dadka soo xulaya iyo cid walba waanu ugu hanjabaynay markaa in ay hablo ku soo daraan oo aanu mar ahayno ama tv aanu ka jeedino ama aanu qoraal u qoree labadaabana waanu samaynay qaaraankii loo ururinayey hablaha ay hiilhaween u ururinayeen qaybtii ugu weyneyd baan ka qaadanay haddaanu xusbiga kulmiye nahay oo markay noo yimaadeen hablaha hiilhaween waraaq intaan u dhigay baan kori intaan ugu soo qorteen halkan ku qora muunaa la socotay taana waanu ka qayb qaadanay 6 gobolba waan soo maray madaxweyne waxaanu ka ololeyn waxa ay hablaha in hablaha loo codeeyo maanu lahayn kuwa kulmiyaha loo codeeyo maanu lahayn kuwa ay hablaha loo codeeyo hala taageero hadday microphone tahay iyo hadday taageero tahayba waan isla barbar taagnay runtii anigu ma qabo inay dhaceen maanta hablaha halkan fadhiya waxaan horena mar dhaweydna waan ugu yidhi waxaan aaminsanahay inay soo baxeen codadka ay keeneen qaarkood way soo baxeen waxa dhowr iyo 20 4 iyo 20 ilaa 70 baa laga horeeyaa marka way soo baxeen gidaar weynna waxaan uga markhaati furayaa Saacadiya inay gidaar jabiyeen oo ah ololaha siday ugu jireen siday rag ugu jireen si ka xoog leh bay ugu jireen ololaha 6 gobolba waan soo maray sawirro haddii ay raggu gidaar ku dhajistaan way ku dhajisteen waxaan filayaa istabta labaad ee ku xigtay haddii ay halkaa ka wadaan anaguna waan idin barbar taaganay xusbiyadana kuma jiraan habla intooda badan halkay ka soo baxaan raggu waxyaabaha idin dheer iyo waxa weeyaan xusbiyaday ka soo baxeen oo nin aan xusbiga ka mid ahayn lama sharaxin laakiin hablaha halkaa fadhiya malaa 3 hablood baa ku jira oo xusbiyada siyaasadda ku jira haddaanay kaba yarayn